kulan soconaya muddo 2 cisho ah ayaa waxa soo qabaqaabisay waaxda tababarada iyo horumarinta shaqaalaha ee guddiga xakamaynta HIV/AIDS-ka Somaliland oo ay ku wehelinayaan mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda shaqaalaha dawladda Somaliland. Kulankan ayaa waxa laga hadlayay nidaamyada habraaca iyo hagayaasha maamulka hay'adda shaqaalaha dawladda Somaliland. Kulankan ayaa waxa iyaguna goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Somaliland, agaasimaha waaxda maareynta iyo hawlqabadka iyo qiimeynta hay'adda shaqaalaha dawladda. Ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha tababarada iyo horumarinta shaqaalaha ee komishanka xakamaynta AIDS-ka Maxamed Jaamac waxaanu faahfaahin ka bixiyay kulankan loo furay shaqaalaha guddiga xakamaynta AIDS-ka Somaliland. Waxay noo furmay maanta tababar 2 maalmood ah. Tababarka waxaan ku qaadanaynaa nidaamyada iyo habraacyada iyo hagayaasha maamulka shaqaalaha dawladda kaasoo ah 16 habraac oo shaqaaluhu ilaa maalinta soo galo shaqada soo galiyo ilaa markuu ka baxayo beeshan galayo sheegaya. Halkan 2 cisho waxaan ku qaadan doonaa tababarkaas waxaanu noqon doonaa mid shaqada lagu noqonayo. Iyaguna halkaasi waxa hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Somaliland Dayib Aadan Xaaji Cali iyo mas'uul ka tirsan hay'adda shaqaalaha dawladda. Runtii habraaca shaqaalaha dawladda in la sameeyo waxa ka mas'uula hay'adda shaqaalaha dawladda sameeyntooda, laakiin ma la dabaqay oo sidii lagu talagalay ma loo fuliyay مسؤولية واحد كوميشن كمامك وحارنتي أنا هدو إيه دون هذا أنا مرة بعض شقائه اللي قلتها بري وحي ما فهمين وما قاعد يصير اللي قلتها مفلية كنتي وأنا صفة عنه وقاص عن هيدا مدون كي قدام بينا ده واحد كسعودة إن كارو قادمين مدة لبضي سنة قدام مثلا كي بركي قدام بيه شقائه ده واحد قرن ساعة هو أي حفيز هذا قروح باريس بين بكم ده أنا قلنا ميتشر مركو هراي كم باريس وكانوا سامين لفتيدو وقايب فيش تسيق كم ده يفكت في ناسك runtii maanta waa maalin farxad leh gaar ahaan waxaan aad ula sii dardaarmaya shaqaalaha komishanka oo iyagu u shaqeeya dad xanuunsanaya waxaan leeyahay talaabo kasto aad qaadaan ajar baa idinka socda xagna waxa idinka socda qarankii oo aad u shaqeynaysaan labadii dhinacba marka waan idinku boorinayaa inaad halka dadaalka ka sii wadaan waxaan idinku gubaabinayaa in labada casho aad xoog saartaan sidii aad u baran lahaydeen maamulka iyo maareynta iyo inta shaqaaluhu inaga doonayaba aadna waxaan ugu mahadcelinayaa hay'adda shaqaalaha halkan iyagana waxay noo fadhiyo qoladii maamul wanaaga oo waxa weeyaan waxay eegayaan maamulkeena iyo wanaageena marka waxa weeyaan si aynu hadhow iyagana aynu waajibaadkeena shaqo uga gudubno aynu dadka u shaqeyno waa in labada casho idinkuna ka faa'iideysataan tababarkan ma hakii koobaad ee uu soo qaban qaabiyo xafiiska tababarada iyo shaqaaluhu waxaan u maleynayaa imika sanadkii 19 marka laga soo bilaabo August ilaa imika August 1 year inuu noqonayo kii labaad ama kii saddexaad ee aanu galno waxaa loogu jeedaa in la idinku dhiso aqoontiina kor loogu soo qaado cidda aynu shaqeynayno iyo shaqada ay gacanta ku haynan. Ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha fulinta ee komishanka xakamaynta AIDS-ka Somaliland Cabdishakuur Ismaaciil Muumin oo ka warbixiyay muhiimadda uu kulankan u leeyahay shaqaalaha komishanka xakamaynta AIDS-ka Somaliland. waxay farxadun maanta inaan idin furo tababarkan xagga tababaradeenna laba bay noqon doonaan qaar waa qaar hay isku jiraanoo labaduba waa tayeyntii iyo kororkii cilmiga ee shaqaalaha ka kalena wuxuu ka imanayaa innaga hawsha aynu hayno qaranka maantana waxaa noo farxada marka in bilowgii hanaankaas oo ay la wadaan maamul wanaagu in halka risalka ka soo baxaana tababaradaas uu noqdo hab maamul wanaagsan waxaan rajaynayaa inaan idinku kalsoonahay inta in ka badanba inaad soo saartaan aad baan runtii ugu kalsoonahay iyo mar walba inaad noqotaan shaqaale iyagu gacmaha is haysta shaqaale ka lugeynaya iyo ka ordaya ay isku istaagaan oo gacanta la isqabsado qaabkaan u soconno iyo performance-keena laftigeedu waxay ka qayb qaadan kartaa in maanta ay markhaati noo noqdaan laftigoodu oo inagula dadaalaan in komishanka laftigiisa budgetkiisa la kordhiyo